السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وغناكسن داوديال إدلهانتين باه ميل والبواد نقد داوانيسان كسو دوادا تيفيغا عالميغا يونيفرسال استودييسا مقالة لندن مركله كسو دوادا برنامجكي أريمها بلشدا أو دوغا براتين تلفزيون كان غورهان أو كالهابين والبو سبتية haddaba caawa waxaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa iyadoo isbuucidii la soo dhaafay ba qodobo kala duwan aynu ku eegnay barnaamijkeena arrimaha bulshada inta badanna waxaynu xoog ku saarnaa qurba joogta Soomaalida caawa barnaamijka arrimaha bulshada waxaynu ku eegi doonaa aabba kaligiisa ama hooyo kaligeed caruur ku korsanaysa qurbaha noloshaasi waa nolol ciinkee haddaba waxaa la arkay dhibaatooyin aad u fara badan oo familadaasi soo taabtay haddii ay noqoto xagga koriismada caruurta wax barnaamijka marti iigu ah Xaawo Maxamed Xasan oo iyadu ah gabar Soomaaliyeed oo baratay arrimaha socialka ama arrimaha bulshada in badanna ka soo shaqeysay research badanna ku sameysay umurtani Xaawo ku soo dhawow studio ma mahadsantahay marka hore waxaan jeclahay inaan Xaawo aan ku bilaabo sidaan ogsoonahay markii qurbaha la soo aaday oo dagaaladii sokeeye dalkii Soomaaliya ay ka dhaceen family aad u fara badan ay halkan u soo qaxay iyo kuwa halkan isku guursaday dhibaatooyin aad u fara badanna way soo gaareen qoysaskaasi dabcan waxaana la sheegaa in hooyooyinka caruurta kaligooda korsada ama aabayaal ilmahooda kaligooda korsada walow aysan badneen aabayaashu ay ku badan yihiin qurbaha noloshaasi Xaawo markii aad wax badan aad ka sameysay maxaa kaaga baxay waxa iga baxay in dhibaatooyin badan ay la kulmaan waalidka markuu kaligiisa ku noqdo ilmaha uu korinaya kaligiisa ay kamid yihiin dhaqaalaha xageeda hadii dhaqaalaha laba dhinac ay ka soo gali jireen family-ga markii hore waalidka markii dambe uu ku noqdo kaligiisa ilmihii dhaqaalihii inay noqoto kaliya hal meel inay ka soo galaan hawshii la isla hayay labada family waalidka hooyadii aabba isla hayeen inuu qofkii ku haray ilmaha oo hawshii kaligiisa ku noqdo wixii kale uu ka heli lahaa oo waxa ay dadkan qurbaha dhahan emotional support oo kale waxyaabihii kale ee marka qofkii labadii isqabe iska heli lahaayeen ee meeshii ka baxaan ilmihiina marka ay waayaan laba qofood oo discipline siiya oo la hadlo u sheega waxyaabaha nolosha siday ula bareeri lahaayeen markay timaado marka hooyo kaligeeda caruur korsanayso aabana la joogin dabcan inta badan waa la kala tagaa noloshaas marka hooyadaas kaligeeda ilmo korsanaysa qurbana la joogo oo runtii school jira isbitaal jiro waxyaabihii kale u dheereen sida dugsiga oo kale sidee bay kula muuqataa marka way adagtahay way dhib badan tahay waliba hooyada haday leedahay 2 iyo 3 iyo 4 cunug oo kale cunug walbana uu u baahan yahay subaxii markay soo toosto iskuulkiina geeyso ka soo kaxayso isbitaalka geeyso wax walba ay u qabato waxay noqonaysaa noloshii inaysan si dhan aan loo qaban ama si wanaagsan cunugiisan u helin daryeelkii uu ka heli lahaa labada waalid markay isla joogaan markay aabaha timaadan aabayaal waxa la arkay iyagu naftirkooda caruurtooda iyaga kaligooda korsada hooyana aan la joogin hooyay aababa iyaga ay u yihiin dabcan kuwaas iyagana ka waran anu waxaan u arkaa wax ay ku kala duwan yihiin hooyada kaligeeda aabaha kaligiisa inaysan jirin aabaha dhibka qabsanaya hooyadana inuu asagana qabsanayaan hooyadana sidoo kale laakiin labada qofood qofku waxay ku xiran tahay qof walba awoodda uu leeyahay oo hawsha ku qaban kara sida uu u yahay qof adagoo hawsha ka soo bixi kara markaa waqti xawaan ku soo laaban doona dabcan sidaan hore u sheegaba waxa qurba joogta Soomaalida ay la soo dirsay dhibaatooyinkan xagga qoysaska ah marka aynu eegno magaalada London oo kale waxa la sheegaa in ay ku badan yihiin hooyooyinka ama aabayaasha kaligooda caruur korsada siday doontaaba ha noqotee waxaan idin hayaa marka warbixin iyana dalalka Scandinavia gaar ahaan dalka Sweden aan idinkaga hayno oo ku saabsan hooyo ama aabba kaligii caruur korsanaysa iyagoo ka hadlaya dabcan in noloshaasi siday u adag tahay laakiin waxaan jeclahay inaan ku hormaro magaalada London waxa ku nool dad aad u fara badan oo Soomaaliya waxaana jira kuwa kaligooda caruurta korsada sida hooyooyinka ama aabayaasha noloshan kali ahaanshada waa mid aad u dhib badan sida ay sheegeen dad badani laakiin haddii labada waalid caruur wada korsayn jiray dabadeedna midkood uu keli ku noqday waa nolol sidee ah waa kan Maxamed Cabdulqaadir waxa uu ka mid yahay aabayaasha keligood caruur korsada isla markaana shaqaysta waxana uu ka waramayaa noloshan dhibaatada ay leedahay anu waxaan ka mid ah aabayaasha ku nool Yurub oo caruur keligood korsado oo iskoolna geeyo kana keeno shaqaystana marka waa xaalad aad u adag waxaan leeyahay
in dhammaan ummaddu ay caruurtooda wada haystaan wada korsadaan hooyadii aabahaba aniga ayaa aragna kuleelka caruurta kaliya la korinayo waxaan leeyahay dhammaantiin garbaha la isqabsado sidaas ayaa looga bixi karaa Yurub xaaladda ka jirto haddii aan usoo laabto xagga hooyada booskeeda nina ma buuxin karo anoo jilayo inaan buuxiyo hooyada booskeedii iyo aabihiiba waana kari waayey kolley hooyada boos weyn haysay Yurubna kuma sii jirto marka waa xaalad aad u adag qof keligii caruur hayo oo korinayo marka alxamdulillah hadda waxaan helay dadku dhan way caawiyaan aadeen ugu mahadsan intii caawisay marka waxaan oran lahaa xaaladaas aad ay u kulushahay familka soo joogan xalay gacmaha is qabsadaan kaliya noqonin aniga ayaa aran hore waxa loo yiri walaal inuu macaan yahay ninkii madiya og waxaan oran lahaa ninkii caruur kaliis hayo ayaa ogaan kara hooyo aabbo noqdo ayaa ogaan kara dhibka iyo waxa laga kulmay marka dad badan oo xataa aan la sheekaystay hadii dumarka oo kasaga maadalka kala la hadlo waxay isku raaceen in iska daayo taas ogeed markii buuq ay caruurta la kulmaan habeenkii sarinta markay tagaan laga neefiyo oo yiraahday caruurta way noo koriyaan bal ha loo dulqaato ayadana waa moraal kale inkastoo aabbo uu iska yahay diidinka caruurta indhihiisa ku koriyaa marka aabayaashu waa kaalin weyn ay hayaan kulay adigana baa fahan filayaa aabayaasha ay ku soo biirtay bal adiguna iska xaji ayaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh hooyooyinka keligooda caruuraha korsadaan ayaa aad ugu badan dalkan Britain inkastoo badidooda ay aad uga warqabaan koriismada iyo akhlaaqda caruurtooda ayaa haddana waxaa la oran karaa inay weli bannaan tahay kaalintii aabanimo ee caruurtana la ogsoon yahay inay inta badan ka baqaan aabahooda laakiin haddii hooyadu ay ubadka u noqoto hooyo iyo aababa waa nolol caynkee ah waatan Zamzam oo iyadu kamid ah hooyooyinka keligooda caruur ku korsada dalkan Ingiriiska waxaana ay ku nooshahay waqooyiga London waxaan kamid ahay hooyooyinka ku nool UK ee korsada caruurta as a single mother keligood ilmaha oo halkan lagu korsanayo wallahi waa dib hooyada kaligeeda maxaa yeelay ilmihii iskuul ay doonayna rol buu la kala hado 5 days a week madrasad geenaysaa oo xaqii islaamkii diintii caruurtiina looga dhawaado aad ay wanaagsan tahay dugsiga ku sugayo iskuulkii ku sugayo adeegii guri wallahi is very hard anigu marka ani ahaanteyda waxaa misana ilmaha inay very important in lagu dadaalo aabooyinka kaalintooda aad ayay u maqan tahay maxaa yeelay caruurteyda for example school bangeya madrasan geeya 5 o'clock till 7:30 in the evening 4 days a week dugsigan dan xaafadadan dugsi ugu qabtaa football bangeya 3 days a week one of the days wiilkayga league ayuu dheelaa under 7ka waxaan geeyaa meel ka baxsan xaafada aan deganahay every morning aan ula kalahaa oo Sunday taasoo nafteyda aan ka jaray hadduu aabbo joogi lahay ama uu aabbo hooyo gacan si lahay waxaan misanaa lahay shaqada in la kala qaybsanahay marka kaalintii aabbo aad iyo aad ayay u bannaan tahay waa boos bannaan raggan doonaya inay buuxiyaan maxaa yeelay aabbo is very important Zamzam oo farxad la qaybsanaysa qaar ka mid ah waalidiinta asxaabteeda ah ee caruurtooda ku dhameeyay quraanka kariimka madrasada Bravo Center ayaa iyana xilligaasi ka hadlaysay dareenkeeda anigoo ah hooyo caruurteeda dhigto 3 caruur ayaa dhigato waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala ilaa xaq yaduu wuxuu ka qor ayaa qoran inay next year caruurteeda noqoto kuwa maanta qalin jabiye kuwa qalin jabin waxaan leenahay kuwii dalkooda iyo dadkooda anfaca Allah ka dhigo marka aabbo waxaan dhihi lahay aabooyinka Soomaaliyeed anigoo hooyo Soomaaliyeed caruurtiin caawiya calaf uu dhamaada qofka waa la kala tagaa calaf wartaradu dhamaado cid ili karto ma waa qadar Allah laakiin waxaan ku aani lahay gabdhaha walaalaha Soomaaliyeed wiilasha walaalaha Soomaaliyeed aabooyinka iyo hooyooyinka in ay samarka badiyaan in gurigoodii aaskiisa laga fikiro la Allah maxaa yeelay hadii labada qof is aragto labada qof future-kooda ma baabaayo already life-kaada in Soomaaliya meel nabad baad ku soo qaadato hooyo aaba ku soo koriyay dugsi ku diri jiray iskuul ku diri jiray laakiin kuwan idinkay idin sugayeen hadee hooyadii aabaha baabaan caruurta ayaa baabaees marka mar walba waxaan leeyahay anoo og caruurta Soomaaliyeed dhibaatooyinka dhibkan kala kulmeen hooyo walbana ay oynayso qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan UK ama meel walba dunida ee aad ka daawanaysaan waxaan idin leeyahay samirka la badjo no one is perfect qof siman oo dhameystiran ma jirto
qof walba il buu leeyahay marka laakiin haddii indhaha layska aaso oo indhaha layska qabto waxaan aaminsanahay in ay nabad dhaceyso maxaa yeelay haddii aad tiraahid hiid wuu subiye ana aan subiyo warabaad caruurta futurekeedii dabcan gabadhii ugu dambeysay waxay ka hadashay ama ay taabatay dhibaatooyin iyada soo gaaray si guudna way uga hadashay xaw maxaa kaaga baxay marka warbixintan hadda markaa daawatay wallahi waxay taabatay waxyaabo badan oon ku arkay markaan research ku sameynayay arrimaha bulshada ee ku saabsan waliba family breakdown ku dhaca badanaa waxay ka hadashay culayska saaran hooyada markay kaligeeda noqoto taa waxaa ka badan dhibaatada soo gaari doona ilmaha markay weynaadaan oo kale waxbarashada ay gadaal ooga dhacaan ilmihii oo duurka gala ilmihii disciplinkii labada qofood ay ka helayeen markay waayaan hooyadii maadaama ay mashquul ku tahay hawshii kale raashin karintii soo adeegidii ilmihii waxsiismadoodii ay mashquul ku tahay uma hayso awooda ilmihii edeb ku bartay wax uu sheegto ilmihii waxaa laga yaabaa marka saaxiibkooda banaanka inay wax ka dhageystaan wixii loo sheegay ay qaataan bulshada hadda aan ku nool nahayna waxaan influence badan inooga yimaada dadkan aan isku dhaqanka ahayn isku diinta ahayn aan isku wadankaanan ka haddii aan dib u laabano marka wiilkii ka horreeyey maxamed isna wuxuu ahaa aaba keligiis caruur korsanaya isla markaana waxaa muuqatay inuu shaqaysanayo oo meel oo dukaan uu joogay ka waran isagana dareenkiisa anigu waxaan weli ku taaganahay hooyada iyo aabaha dhibaatooyinka ay la kulmaan way kala duwanaan karaan laakiin labadoodaba waxay la kulmayaan dhibaatooyin markay keligood ilmaha ku noqdaan waxay isku kala duwanaan karaan weli iga raali noqo labadooda sidii markaa awood ay ugu leeyihiin ee nolosha uga baxaan marka dambe waa tahay dabcan markana waxaan jeclahay inaan xagga telefoonka aan uga baaqo xasan carab oo isagu ka mid ah qorayaasha soomaalida dabcan xasan waxa uu ka mid yahay aabbayaasha keligooda caruurta korsada waxaana uu ku nool yahay meel xoogaa ka fog magaalada London habeen wanaagsan xasan hallo assalaamu calaykum الو السلام عليكم. وعليكم السلام حسن. الو حسن من مغلسة. هاواكم مغلا. حسن si toos ugu jirtaa qadka telefishinka Universal TV-gana xoogaa ka yara fogow waxaan jeclaan lahaa marka waxaad ka mid tahay aabayaasha keligooda caruur korsada noloshaasi ka waran waad mahadsan tahay Ibrahim Baafo marka ku sameeyo adiga iyo waa ku maqlayna Xasan oo saco حسن TV-ga ka soo wareeg telefoonka igala soco dabcan adigoo mahadsan waa ka xumahay Xasan Carab waa uu ka go'ay waxaan rajeynayaa inuu dib ugu soo laaban doona runtii waxa kaloo aan idin hayaa warbixin iyana ka timid dalka Sweden oo kamid ah dalalka Scandinavia waxa iyana ku nool Soomaali aad u fara badan oo iyana caruur keligooda korsada sida waalidiintii iminka aan ku aragnay magaalada London waxaan jeclahay inaan u baaqo wariye Cabdiraxmaan Xudayfi oo Sweden jooga iyo waliba warbixintii halkaas inoogu soo diray inkasta oo qoysas aad u fara badan ay ku nool yihiin wadankan Sweden haddana waxa aad iyo aad u yar qoysaska sida wadajirka wada nool sabab la xiriira duruufaha dhinaca dhaqaalaha oo ugu badan inay qoysaskaasi ay burburaan waxaa inta badan aad arkaysaa hooyooyin aad u fara badan oo caruurtooda kali ku ah iyaguna ay xanaanaystaan halka aabihii dhalayna caruurtaasi uu magaalada geeskeeda ku nool yahay amaba buuq fara badan iyo dhibaatooyin fara badan oo ka dhaxdhashay darteed ay gaartay ilaa heer booliisku caruur aad u fara badan ayaa Soomaalida qaarkood laga qaatay oo ay dadkii Swedishka ay gacanta ay ku hayaan halka kuwa kalena ay la baqayaan in caruurtoodii la qaato waalidiin aad iyo aad u fara badan oo la kulmay wax ka weydiiyay sababaha keenaya in aan si wada jir ay loo noolaanin ayaa waxa ay ku gaabsadeen oo kaliya in ay sahin kari waayeen amba ay wada noolaan kari waayeen hooyada dhashay caruurtaasi taasina ay keentay in aqalkeeda isaga soo holalaan halka kuwa kalena ay tilmaamayaan in dhibaatooyinka heer ay gaartay in dawladdu ay soo farageliso taasina ay keentay in isaga lagu wargeliyo inuusan area-da ay ku nooshahayba uusan ka soo dhawaan karin halka hooyooyinka qaarkood iyaguna raggu ay ku eedaynayaan in dhibaatooyinka qoys burburka inay iyagu sabab ay u yihiin hooyooyinka qaarkood ayaa waxa ay tilmaamayaan burburka ugu badan ay qoysaskooda u burburo inay tahay arrimaha la xiriira dhinaca qaadka ama balwadaha qaarkood
inkastoo labada dhinacba ay dareemayaan in wadajirku uu aad iyo aad u wanaagsan yahay ayaa haddana waxaa si gaara hooyooyinku dhib ugu ah inay keli ay ku ahaadaan haysashada caruurtooda. khadiija waa hooyo keligeed la nool caruurteeda waxaana ay si weyn u dareemaysaa in dhib aad u fara badan ay ku qabto inay keli ay ku ahaato caruurteeda. waxay barnaamijkan ay kaga qayb qaadanaysaa hadba dareenkeeda la xiriira mowduucan. wallaahi hooyo keligeeda waxay dareemaysaa wax aad u dhib badan ama aan fiicnayn. maalin waxaa jirta barafka uu saa'id yahay, barafka uu da-ay roobna ku jiro dhexdiisa, vaaginkii aadan riixi karin, dukaanka uun ku dhaweyn. Soomaali hadday rabto dadka ay wada joogaan guryaha ay iskuulaad jiraan, markaasoo kale caanaha wax kuu doona weysid. waxaa dhici karta inaa ilmaha habeenka usoo jeedid oodan seexan habeen oo dhan, ilmahaas uu kaa xanuunsado habeenkaas uu hergab ama hayo ama macnaha xanuun kale ku dhaco qandho qabato, subaxii 5 adoo soo jeeday inaad 2 saac subaxnimo haddana dhaqtarka adiga kaligaa wacatid adoon gaari haysanin, kaligaa aan lugeysid haddana bas raacid oo baxid, ilmihii aa keentid, kii kale oo iskuulka aa geysa haddana adiga kaligaa aa ka doonaysid. horta nolosha kelinimada aad ay u dhib badan tahay. gabdhaha Soomaaliyeed ee hadda rabo inay yani keligood noolaadaan waxaan kula talinayaa inay keligood noolaan. nolosha kaliya inay tahay nolol ciriiri ah oo xun ay dhaanto dhimashada. dhinaca kale waxaa jira aabbayaal iyaguna si gaar ah u haysta caruurtooda. waxaa ka mid ah Cumar Cabdulle. Cumar waxa uu leeyahay 3 caruur ah waxaana nasiib wanaag caruurtiisu meel fiican ay ka gaareen barashada Quraanka Kariimka ah. inkasta oo dhib ay ku tahay inuu kaliya ku ahaado caruurtiisa, haddana waxa uu ka sheekeynayaa dareenkiisa. hooyadu sideedaba waa lama huraan. waxaa ognahay in hooyadu ay tahay qoyska barkiis, ayna ilmaha kala hagto iyo aabahaba. qoys aan hooyadiis la joogin waxay leedahay dhibaato badan ayuu leeyahay. waxaa u taala shaqadii hooyo ay qabanaysay iyo shaqadii aabe. shaqadii hooyo oo ah wadan shisheeye oo Yurub ah oo haddana baraf jiro qabow ah oo la doonayo in ilmaha subaxii la kiciyo loo diyaariyo soolkii quraacda loo diyaariyo kabacdi soolkii loo diro. anigoo shaqeynaya haddana laga rabo inaas diyaariyo waqtiina isku wadeeriyahay. marka waxa weeye hooyadu kaliyeed ah iyo aabaha kaliisa wuxuu ku qabaa Yurub dhibaato. marka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Yurub iyo wadamada shisheeye dhan waxaan ku talin lahay inay isla kala tagin ee hooyadii aabahana iska cunastaan. way dhacaysaa in dhib dhaco laakiin la sabro. si kastaba ha ahaatee Baafo Xaaji Xasan Qaras waxa uu ka mid yahay odayaasha Soomaalida ee ku nool wadanka Sweden, waxaana uu sabab uga dhigayaa qoys burburka Soomaalida inuu yahay balwada ama qaadka. waxaana uu yiri waxaan kaloo u dardaarmayaa gabdhaha Soomaaliyeed ragga qaadka cun waa mid ay u dhaxaan iyo mid ay dhaleen iyo mid la dhashay iyo mid dhalay. ummaduna waxay ka toostaa guriga, gabdhuhuna guriga macallimiintoodii waaye. marka dad badan ayaa qaba gabdhaha in yani mataqaanaa in xawhay wanaajintii la wanaajinayo meel looga dhacay. anigu marka haddaan xisaabtamay inaan gabdhaha diintana la barin maadigana la barin, arrintaas waa lagu qaldamaan qabaa. laakiin midda kale oo guryuhu ku dumayaan waxaan rabaa gabdhuhu inay ka xishoodaan. haddii alla idmo gabar Soomaaliyeed maanta eed uma hayno, maxaa jira ma dhacdo, ma kufsato, ma disho, waxa wax dila oo wax dhacwaa ragga. si kastaba ha ahaatee waalidiintu waa inay gartaan maslaxadda caruurtooda. waalidiin aad u fara badan ayaa iminka waxaa ka maqan caruurtoodii sababa la xiriira kadib markii buuqu ka dhex dhacay waalidiintii dhexdooda, taas oo aakhirkii keentay in caruurta loo gacan geliyo dowladda. waalid kastana waa inuu ka fikiraa mustaqbalka caruurtiisa maadaama la yimid wadamo qurba ah. aad iyo aadna u adag tahay in caruurtu dhaqankii iyo diintii la baro. waa hagaag markana waxaan idinku duwayaa Ibraahim Baafo iyo barnaamijkii. cabdiraxmaan xudayfi aad ayaad u mahadsan tahay. warbixintaasna waxay nooga timid dalalka Scandinavia, gaar ahaan dalka Sweden. runtii waxaanu ka hadalnay dalka Britain. Scandinavia aad arkaysaa weliba barafka aad uga badan yahay. gabadhii hadlaysay mar dhow waxay tiri waxaa adag inaad riixdid vaariga ama gaariga ilmaha lagu qaado. markaad aragtay London, Sweden waad aragtay dabcan, ka waran maxaa isbedela? London baraf ma jiro badanaa, laakiin dhibaatada waa meeshii uun
hooyada 5 cunug haysata ee rabtay inay cunug caana usoo kaxayso mid kalena hurdaya qofay kaga tagsan haysanin dhibaatadii haysatay tii joogtay Sweden ee barafka la bixi weyday way haystaa iyadana marka wax kala duwanaan karaan laakiin dhibaatada markiiba way jiraan laakiin waxaan rabaa inaan ka hadlo qof wariyaha wuxuu taabtay problemka qaadka iyo domestic violence-ga keenay dadka inay ku kala tagaan base-ka u ah Soomaalida badankooda inay ku kala tagaan marka gurigii dagaal markaas ka taagan yahay dadka isdirirayaan oo isdilayaan ama iscaynayaan haddii kala tag uu ka yimaado dhibaatadaas daraadeeda ilmihii waxaad moodaa way dhibaatoonaysaa gabadha ilmihii inay banaanka geysay iyo waxay qaban lahayd laakiin waxa at least ka dhamaanaya dhibkii lagu hayo marka ninka ku hayay guriga markii wada joogeen ama iyada ay ku haysan ninka laakiin dhinaca kale waxaa la oran karaa marka haddii ilmaha labadu haddii isla joogi lahaayeen labada waalid مثلا أبي هوي علمي حتى وحي حسوسنا لهاين إن احترامك والدك أما عبسدي والدك يا ماشي حتى كم مقن هوي ذا كل جذا إن مكرتو إن علمها أي مانج كريسو أما بأي حفظيسو واركتي ودك وكلفوجي هاي سكول يا لقيا سبتال الله لجرا دكسي يا جرا سيدا زمزم قبل بشيء جيسي إن علمها هذا دكسي ميل فوق وجيسو أما بأ إن علمها مدى ذلك اللي وبين حتى بنوني إيميل بدنا يا لقيا مركا waxaa haboon sida dadku ay badanaa sheegaan in labadooda ay iskaalmaystaan fariimihii ugu dambeeyay dadkaasina waxay ay ku socotay familada iminka isla jooga oo isqaba inayna si sahlan aysan ku kala tagin hadii kale dhibaatadan dadkan arkeen ayaa taaban doon sida ay sheegeen waayahay dad aad u fara badan ayaa dabcan qadadka telefoonkana soo buux dhaafinaya iyagoo doonaya inay barnaamijka nagala qayb qaataan iyaga aan jeclahay markan inaan u baaqo hello assalaamu calaykum wa calaykum salaam magaca walaal حسن شيخ عمر وجوغا نيروبي واي حسن قفكي ugu horeeya tahay Afrika ayaana ka soo hadlaysaa dabcan dhibaatada laga hadlayana waa aaba kaligiisa ama hooyo kaligeeda caruur ku korsanaysa qurbaha Nairobi way kamid tahay dareenkaaga sidoo yahay maxaad fikira ka qayb qaadanaysaa barnaamijka ibrahim horta aad u mahadsan tahay dabcan dhibaatadan horta hal barnaamij ba looga hadli karaa ayaan isleeyahay yani fikraantayda waan la socdaa haddii la yiraahdo dhibaatada qoyska ka soo gaarta waliba qaarba jooga aad u fara badan waalidka waxay ku fiican yihiin caruurta inay la wada joogaan haddii hooyo kaliya ay ku noqdo dhibaato badan ay kala kulmaysaa haddii aaba kaliyana dabcan saacada telefishin ka daawaya ka cabanaya ayaan u jeedayay oo markaasi ilmaha asoo korsado marka isagoo qurba jooga oo haddana shaqo rabo oo dad Afrika jooga wax ka sugayaan ciyaalan korinaya hadduu yiraahdo ama aan wax waliba aan uga qayb qaadanaya dabcan taasi dhibaato weyn ay ku tahay sidoo kale hooyadana waa sidoo kale dhibaatadaasna wax asal u ah marka Afrika laga tagayo ayaa aabi wuxuu ku tagay caruurtan anigu ma dhalin oo dikileysa si uu u tago wadamadaasi marka dhibaatada asalkeedu waxay ka timid Afrika markii hooyadii aabi ay isla joogeen waxay ku soo kala tageen caruurtan anigu ma dhalin magaaladu gees ka degan yahay caruurtii maamadii waxay leedahay boyfriend ninka waa saaxiibkii camal oo kale oo ninkeedii ma qanayna uu yahay marka dhibaatadu Afrika markay ka imaanayeen ay asal ahaan ka timid xasan aad baad u maasan tahay dad kale oo aad u fara badan ayaa jeclinay barnaamijka igala qayb qaataan mahadsanid qadka xiga hello assalaamu calaykum waa tahay qofkaas way maqal waayay dib ayaan ugu soo laaban doonaa xasan wuxuu taabtay Afrika ayuuna joogaa dabcan qurbahana way kamid tahay Nairobi maxaa isleedahay marka dhibaatadani aabahan kaligiisa caruur korsanaya ama hooyadan kaligeeda caruur korsanaysa xasan wuxuu ka hadlay dadka inay ku soo galayaan halkaan ay dhahayaan waxaan isku qabnaa boyfriend and girlfriend responsibility marka waxa yaraanaysa qofkii mas'uuliyadii odayga saarneyd way yaraanaysaa markay isqabaan sharci ahaan wadankan separate-ka dadka ku noolha taas waxay keenaysaa marka qofkii iyagoo raba taas inay danahooda kale ay ku gaaraan in family-gii ay dhibaato u keento oo odaygii uusan mas'uuliyad ba iska saarin ilmihii xaggooda hooyadiina ay iska dhigtay kaligeed inay mas'uul ka tahay ilmihii waxa ka wadaa markii dawladda iska register-gareynayaan single mother oo kale arintu ka hadlay wiilka uu yiri single waxaan ahay single mother anaa dhalay ilmahan nin kale iga dhalo saaxiibkayga iga dhalay waan aabihii jooga diin ahaan iyadoon fiicnayn haddana practical ahaan labadii qof waxay keenaysaa in mas'uuliyadoodii ay kala dheeraato xogaa yar oo ilmihii xataa waxay fahmayaan markii qolada inspection ka yimaadaan guriga oo aabihii ka cararay oo hooyadii kaligeed inay ilmaha haysato waxba ma dhaanta marka tan aan waxay dhaatay maalinta ka dambaysa mas'uuliyadda aabaha way soo yaraanaysaa ilaan wuxuu dareemayaa mas'uuliyaddii saarnayd inay ka yar tahay tii hore maadaama la leeyahay aabihii dhalay maahana waa oday maxalle saaxiibkayga iga dhalay ilmaha laakiin dhinaca kale haddii aanu ka eegno dhibaatooyin kale ayaa jira iyana hooyada kaligeeda ilmaha haysato
hooyooyin aad u far badan ayaa jira dabcan oo ilmahooda ilaahay u toosiyey ama iyagu naftirkooda juhdi badan ay geliyeen kuwa dayacana way jiraan laakiin ma badno kuwa dayacay badana waalidku ilmihiisa qofku ka jecel yahay ma laha intuu la tacaali kara waa uu la tacaala laakiin ilmaha haddii aan cabsi kale aysan ka haysanin waalid oo rag ah waxaa dhici karta inay u fududaadaan waxyaabaha hadda wadamadan ay ku badan yihiin sidaan sanadadii lasoo dhaafay dalkan Britain oo kale 2005 6 caruur far badan waxaa jirtay oo isdili jirtay ilmaha sidaad la socotid ama crime ku jiray drugska waxyaabahaas dhan marka sidan labada dhinac way noqon kartaa in aabba aan la joogin oo islaanta kaligeeda ilmaha ay korsanaysa ama inay separate kan bay ku noolyihiin oo noloshan khiyaaliga ah oo caruurtiina ay dareemayaan way jirtaa waxaa la sameeyey daraasaad badanaa laga sameeyey arrimahaas oo dadkan Soomaali kaliya maahan oo bulshada kale laga sameeyey xitaa waxaa la arkay wax u badan wiilasha inay noqdaan dadka duurka gala markii hooyada kaligeeda haysato hadduu aabaha kaligiisa haysto waxaa laga yaabaa inuu aabiyo ka baqo laakiin markii hooyada kaligeeda haysato wiilal uu ku jiro waxaa la arkay wax badan wiilal badan inay duurka galeen ama ay galeen dadkan wax dildila waa tahay qadadkii telefoonka ayaa markana aan jeclahay inaan u gudbo qadka ugu horeeya halo السلام عليكم هلو السلام عليكم ها عليكم السلام ورحمة مقعا ولا هلكك سؤال لسا تي في قنا اسكا قابا دور عليها ولا فايسة لي لا ولا راح نقصها هلا يا لندن فايزة كورن هذا وجود قال يا برامجك سيدباد واركتان ولا شاء سوي كل جد عروق كرسنيسا ما بكل والله أنا هرت واحد سيدا واحد لسان يعني شعب نقوم كلا تجاه ومضى الصومالية ولا يعني قربنا جوكتا قارة تجاتك عنبا يعني الموضوع ضياعي وكتجي ما فهم ما يوحنا كهلنا هو كل جد عروق كرسنيسا ولا شاء سيدباد كولا مقطع أنا واحد يلا مقطع بالورد دقن كيها لو نقضه واي أدب وسط فايزة واحد يلا مقطع كل اسكو من معهم هو يمكن هو الموضوع يستوى مركي الله كتجي يعني كسيف يعني واجر ما فهم اوكي sidee marka aad dadkii aad aragtay saaxiibada ama qof oo arintaas ku dhacday maxay dareemayaan aslada waa ka go'ay Faiza qadka xiga halo assalaamu alaykum magaca walaal walaal Ahmed aliya Ahmed halka ka soo hadlaysaa walaal Suudan Ahmed adoo gudagalaya barnaamijka fikirkaaga soo gudbiyay sidee kula muuqataa hooyo kaligeed caruur korsanaysa ama aaba kaligeed caruur korsanaya niyo arintaas waa ruux weeye arin aad u wanaagsan maaha waxaan wanaagsan dadku labada qof ay wada joogaa inay xogaa noloshooda hagaajiyaan oo ay jiraan hawshaas xaaladda wanaagsan ma ahaniyo marka dhibaato inta la eg bay dadkaasi assalaamu calaykum wa alaykum salaam walaal waxaan rabaa baafo inaan wax yar ku darsado aniguna waxa weeye Sweden ma kala soo hadlaya Fuad baa la yiraahdaa marka walaal waxa weeye arintan ay leeyihiin ragga iyo dumarku way kala tagayaan dumarku badanaba waxay ku meeraystaan in raggu ay qaab cunaan ama ay balwada leeyihiin oo sida ay caruurtii ay maaragtay ay caruurtooda u maamulan waayeen markii laga yimaado kala taga ka sokow hooyo kaligeed caruur korsanaysa ama aaba kaligeed caruur korsanaya noloshaasi ka waran meeshaasi walaal aad iyo aad bay dhibaato u tahay aad iyo aad bay walaal dhibaato u tahay kale waxaan u maleynayaa dee nin walba ninna caruurtiisa kama tageen haddii ay xaaskiisu wanaagsan yahay ninkuna hadduu wanaagsan yahay naagina kama tagteen laakiin walaal waxa weeye waxaan u arkaa arintaas arin khalada baan u arkaa labada dhinacba inay caruurtooda korsadaan way fiican tahay laakiin waxaad moodaa in dumarku ay had iyo jeer ay ragga durayaan oo ay leeyihiin muxuu ahaa qalad ama balwadu raggu leeyahay marka waxa weeye walaal waxaa la isku haystaa keliya dhibaatada waxa kale la isku haystaa waxa weeye gabadhuna waxay doonaysaa lacagta ilmaha ay ku qaadato ninkuna wuxuu doonayaa lacagta uu ilmaha ku qaato labadaba ilaahay ka boqo waxa taa caruurtiina korsada way aad baad u mahadsan tahay qadka xiga halo هلو هلو السلام عليكم مقعا هلكك سؤال لسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لندن بانك سؤال يا أبو مقعا قنا ولا مقعا قطرة اللي هذا قطرة هذا قد قال يا برامج كورن درينك واسيدي maxaad ku kordhinaysaa hooyo kaligeed caruur korsanaysa ama aaba kaligeed nolosha sidee baad aragtaa wallahi Abbo horta noloshii hadda dadkii dib baaba maaragtay meeshii ka muuqdo oo wixii ay dadku ka hadlayaan hadda maba joogto arinta aniga kula hadlayo ilmaan hooyanahay ilmaan kaligay kuriya mana u arka dib inay tahay ilmaha hooyada iyo aabaha responsibility-ga qofkii markaas haya waxaa loo baahan yahay sida ilaahay ugu talagalay oo alla mas'uuliyadda nooga saaray in uu uga soo baxo kala tegitaankana wax ma aragta soo jireen waayo oo hore loo kala tegi jiray oo kala tegitaanka hadda kama hadlayno waxaan rabaa inaan ogaado kaliya
dhibaato intee la eg baad dareenta adigu markaad keligaa caruur haysatid oo iskuul aad geynaysid ama isbitaal ama wax walba ama aadan haysanin qof kula caawiya ama ku kaalmeeya walahi kolley booskii mar walba waa banaan yahay baahidii mar kasta baahidii meesha way macnaha booskii aabaha loogu talagalay way banaan tahay ilmuhu way u baahan yihiin aabuhu inuu maaragtay uu xilkiisa asagu iska leeyahay uu guto laakiin aniga nafsiyad ahaan waxaan dareemaa inaan hooyo aaba iyo hooyo isku dhan ahay 20 sano ka badan baan korinahayay ilma aan aaba lahayn abood ifka jooginin oon iskuul ka bixiyay oo garwaaj gareeyeen oo heer ay maxaan ku raahayto college dhameeyeen oo heer jaamacadeed ay gaareen marka aniga dumarkii ragaba hadda waxaan advice ku siin lahaa sida run ahaantii ah macnaha nolosha runta in loo soo noqdo la isku samro nin iyo naag kasta oo hadda isaysto kale anaga teen way dhacda laakiin dareenka macnaha ilmaha iyadoo loo danaynayo in nin walba booska uu asagu leeyahay uu ka soo baxo aad bay u qurux badan tahay inaan dumarkana la eedayn raggana la eedayn aabayaasheen sharaf bay nagu soo korsheen anaga dacwo uma qabno hooyooyinkeena maasha Allah aas-aaska noloshuna mar kasta hooyada waay aad baad u mahadsan tahay mar kasta aas-aaska nolosha iyo quruxda hooyada waay aad baad u mahadsan tahay qadka xiga balanaayay halo salaam calaykum waalaikum salaam magaca wala magacaygu baafa waa Siciid Sheekh Cumar oo jooga magaalada Nairobi Siciid adag soo laabtay mar kale maya Siciid okay xasan buu waay raaliga noqon barnaamijka ka faa'iideyso marka ay waqtigan cariiri buu igu yahay fakarkaaga soo gudbi Siciid okay bafarto arintani waa arin in badan laga hadlay waana arin 100% ah in awood la saaro problemka jiraahu oo hooyada kaliya ama aabaha kaliya carruurta korin kara oo la kulmi karo waa wax dadkuna ay dareemi karaan aadna dhibaato weyn oo ah marka in laga hadlo aniga waxay la tahay muhiimadu ma ahane waa in laga hadlo maxay keeni kara in hooyaduna kaligeed ay noqoto carruurta ay koriso adaguna oo kaliya carruurta koriyo taas baa wanaagsan in laga hadlo way iska cad in dhibaato fara badan oo keeni kara marka hooyo kaligeed ay tiraado mas'uuliyadii hooyo iyo aababa dhabarka ay u ridato iyadu oo qof dumar ah oo daciif ah shaqo laga rabo oo iskuul geyn laga rabo oo wax badan laga rabo nadaafada ilmaha laga rabo yani waxa ku soo jabaya ama dusha ka fuulaya la oran kara mas'uuliyadii aaba iyo mas'uuliyadii hooyada sidoo kale aabuhu kaligiis kama bixi karo carruurta kaligeed inuu koriyo waayo Soomaaliya wax ku maamaadaa la yiraahdaa يعني مرتي عن حاسكاده كله سورين iyo mameed baa kala dhimanta laakiin yani hooyo la'aanta aaba wax oo inaba leekaatay oo wadi karo ama uu korin karo problem weyn oo ma kara ma jirta oran kara waa Siciid aad u maasantahay runtii wuxuu ka hadlay Siciid qodob oo nagu cusbaa dabcan waxa la xasuustaa hadii guriga martiqaad uu ka jiro oo dad la martiqaadayo hooyada ayaa ku wanaagsan cunto karinta wax walba laakiin aaba kaliya ilmo korsanay hadii loo soo martiyo laakiin ogow hadda niman badan waxaa jira raashin karintii bartay oo naagihii ka fiican ma la dhihi karo marka waxaan taaganahay berigii hore dumarka kaliya wax karin jireen waxaa kaloo kelmad arrin fiican ka hadlay waxay ahayd gabadha Faa'iisa may ahayd gabadhii ugu horeysay waxay tiri gabadhii London ka soo hadlayso ma waxay tiri waxa jira hooyooyin badan oo kaligood ilmaha korsanaya noloshoodana ka fiican tahay hadartaan markii hore ay ku jireen familiga oo isqabeen ninka taasina waa arin fiir gaar ah in la siiyo u baahan sababtoo haddii dhib ay ku jireen marka hore familiga isdili jireen isdibi jireen isdhibaateyn jireen kala tag wuxuuba keenaa markaa ilmihii inay helaan dhibaato la'aan iyo meel dagaalkii buuqii hooyadii aabiis dagaalay maalin kasta arkayeen inaysan arkin hooyadiina waxaa laga yaabaa maskaxdeedii inay qof caadi ku soo noqoto oo ilmaheedii ay u hesho waqti ay ilmihii ay ku koriso wax fiican ugu qabato marka taana in la ilaawo ma ahan kaliya waxaan fiirinaynaa dhibka iman kara laakiin sometimes waa faa'iido way iman kartaa kala taga laakiin majority-ga ama markii laga hadlayo sida guud waxa cad marka in mar walba dhibaato la aad absolutely waa dad aad u fara badan ayaa laga yaabaa inay qadadka telefoonka ay soo buux dhaafinayaan iyagoo ka qayb qaadanaya barnaamijka hello هلو السلام عليكم. عليكم السلام مقعة ولا؟ والله فوضى هذا. هل كيف صار لسه هذا؟ لندن. برنامج كورن والله سعتان فيليا. ياه والله سعتان. نولش هسي بعض ورك تامرك. والله ونول عادي أدو أذك. ون المها علشان المها كل باتوده. عنقا هويدي أباها كلا تيان ده سماته لكن واحد دباتة إتهاي عنقا هدي هويدي سكري سوكريسو. شيء دان أو كمد ayaa ka maqan maskaxdiisa cunuga kale hooyadii aabihiisa oo koriisku maskax maaha
waa aniga khibrad aan kusoo koray aniga aabbahay hooyaday may kala tegin laakiin aabbahay alla u naxariisto wuu dhintay 9 jir anigoo ah laakiin waxaan dareemayay ilmaha kale inaan isku maskax ahayn aan little waxaan kuu sheegay downka ahay happiness oo kale ma haysto cunuga ama habarta dhib ha ku jirto mise adooga dhib ha ku jiro semberi waa inaa cunugaaga adiga ka mas-uula waa sakhiir ilaahay ka soka adiga ifa keentay waa inaa adiga lambar 1 cunugaaga ka dhigtaa ilaahay baa ninkan kusii gurka lagu sheego god madow aa gacanta gelisay oolaad baa u dhashay how can you survive cunugaaga maskaxiyan cunto kaliya aa siisay dhar kaliya aa siisay uma baahna maskaxiyan ilmahaagan suu ilmaha kale ula qabsadaa iskuul baa u dirtay maskaxdiisa ma qiyaasi kartaa waa maya aad baad u mahadsan tahay waa runtii fakir kale ay nagu soo kordhisay oo ah inay kala maskax fiican yihiin caruurta labadooda waalid la soo koray ama waalid kaliya la soo koray taa ka waran adiga maadaama research badan aad sameysay waa runteeda ilmaha markii laba waalid haystaan oo laba qof wax u sheegaya midna waxa laga yaabaa inuu dhinaca diinta xoga sheego dhinaca bulshada xoga sheego mid inuu qof walba waxbuu ku fiican yahay way iskaalmaysanayaan marka cunuga kalsoonida isku qaba asaga qof ahaan xitaa way ka fiican tahay sida la arkay ilmaha halka waalid soo koriyay marka gabadha waxay sheegaysaa waa runteeda ilmaha waxa laga yaabaa inay maskaxdoodii xogaa niyadoodii ay jabto markay weynaadaanna waxa la yiraahdo lack self esteem inay ku dhacaan oo hadhowda bulshadii la dhaqankoodii waxa ay cabsi ay ka galaan markasta markay dadka la dhaqmayaan ama dadka ay la hadlayaan xaw adigoo ka faa'iideysanaya marka fursadan oo runtii arrimahan aad baratay xogaa muddo dheerna aad ku soo jirtay si gaar ah aad ugu dhoon dalooshid arrimahan socialka ama bulshada maxaa talo marka u soo jeedinaysaa waalidiintan ilmaha kaligooda korsanaya ama kuwa iyagu hadda u degdegaya inay noloshaas ku biiraan okay waxaan talada waxa ku fiican kuwa hadda u socday inay nolosha ku biiraan in la siiyo kuwa ku jira waxaan dhihi lahaa waad la qabsanaysaa shaqada ilmaha kaligaaga aad korinayso maalinba maalinta ka dambaysa waxaa kuu soo baxaya il aad hawshii ku qabato marka adkaysa oon wad gaaraysaa meesha doonto wayna dhib badan tahay of course haddii keligaa aad ku tahay ilmihii kuwa hadda u socda inay keligooda waalidnimada ku noqdaan oo ilmaha keligooda ay korsadaan waxaan dhihi lahaa haddii aysan dhibaato ku jirin oo guriga dhibaato ka taagnayn oo domestic violence and family problem kale uusan jirin haddii la xallin karo dhibkaas iyada iyo labada qofood labada waalid uu haysto ilmaha mar walba waxa wanaagsan labada waalid inay la joogaan aad baad umahadsan tahay xaawo maxamed xasan oo barnaamijka igala qayb qaadanaysay waana barnaamijkii arrimaha bulshada isbuucan waxaanu kusoo qaadanay qodobkii ahaa hooyo keligeeda caruur korsanaysa amba aaba keligii caruur ku korsanaya qurbaha noloshaasi waa nolol sidee ah dabcan waxaa igala qayb qaatay saaxiibkii cabdiraxmaan xudeyfi oo isagu warbixin iiga soo diray magaalada Stockholm ee dalkaasi Sweden waxaan ka cudur daaranayaa ka xumahay xagga fanaaniinta aan iraahday ama abwaanadu arintan waxa ay ka sameeyeen inta badan fanaaniintu waxa ay ka sameeyaan arimahan oo kale heeso ay ku muujinayaan ama ku guwaabinayaan nolosha noocan oo kale waxaana ka xumahay clip ama video laga soo duubay mid kamid ah fanaaniinta reer London oo umuurtaasi taabatay iyadoo waliba kamid ah hooyo keligeeda caruur korsanaysa isla markaana ka hadlaysa dareenkeeda noloshaas sida ay u aragto iyo heestii ay ka qaaday ayaana ii suurtagelay inaan idiin soo gudbiyo laakiin mar kale ayaan barnaamijkaas dib idin kugu soo gudbin doonaa aniga iyo asxaabta igala shaqaysay barnaamijkan arrimaha bulshada waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo